بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان اللوات أيام بلاوينا مركا عشر قرآن كسو الله حروف إنجليز كني لاتني يلح كوبين أو ده alphabets لاتني يلح ده أيوة وين أيوة يرين روان قرني مركا حنرنا لاتني يلح ده إن كلا بحنه قابك أو كلا بحن مركا لبا أيوة كلا بحن كوه حال ده vowels أنت أنكو قرأ vowels vowels waxaa weeye waa shaqaladii xarufta ingiriiska shan ayay ka kooban yihiin shanta waxaa weeye waa e I ayada dhibac ayay kor ka leedahay o U كون وشغلة إنجليز كهال دا vowels إلى آخره A E I O U A E I O U قاب كأو قرنا حاوي حرف كأس مركو وين هي مركو يري أيام كله تاو قري A E I O U A E I O U A E I O U A E I O U kuwa kalena waxaa la dhahaa consonants kun waa shibanayaashi marka waxay ka kooban yihiin 26 عفوا marka 21 qaabka loo qoro aan fiirinay qaabka loogu dhawaaqo waxa u horeysa b waxa ku xigta c waxa ku xigta d waxa ku xigta f waxa ku xigta g H J ayaa ku xigto J-dan dhibac ayay kor ka leedahay waxaa ku xiga K waxaa ku xiga L waxaa ku xiga M waxaa ku xiga N waxaa ku xiga O N may O cafwan O kuma jirto N P waxaa ku xiga Q waxaa ku xiga R waxaa ku xiga S waxaa ku xiga T waxaa ku xiga V waxaa ku xiga W waxaa ku xiga X waxaa ku xiga Y Z ayaa u dambeyso marka waxay ka kooban yihiin 21 xaraf marka shanta laga bixiyo 21 waxaa la dhahaa consonants mise shibanayasha aan ku dhawaaqno B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y
Z hal mar aan ku celino B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z waxaan baranay cashirka hore xarfaha ingiriiska in alphabet la dhaho ee 26 ka kooban yihiin cashirkan waxaan ku akhrisanay in laba loo qaybiyo xarfaas mid la dhaho vowels oo shaqale ay yihiin oo 5 ka kooban yihiin kuwa kalena la dhaho consonants shibanayasha waa 21 qaabkan ayaa loo qoraa xarf markuu weyn iyo markuu yar yahay cashirkan intaas noogu dhamaado. Assalaamu calaykum waraxmatullah.